الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات موضوع أي ولا له صوت شديد لنا وحكي لهذا وكسب سيهي القبلية وآثارها السيئة قبيلة iyo raadadkeeda ama natiijooyinkeeda xun waxaan u malaynayaa waa mowduuc aan baahi aad u fara badan u qabno aadna looga hadlay laakiin in aad loogu celceliyo u baahan mujtamacaadkii rususha loo soo diri jiray hal qodob waa ka dhaxeeyay oo ay ku khaldameen qodobkaasi wuxuu ahaa inay ka inxiraafeen ilaahay tawxiidkiisa iyo keliyeelidiisa iyo xaqiisa inay ka inxiraafeen taa marka laga gudbo qolo walba waxbaa u gooni u ahaa dhaqamo kaloo khaldan ayaa gooni u ahaa soomaalida maanta nool waxaan u malaynayaa cudurrada ugu muhiimsanee in laga daaweeyo ay u baahan tahay waa qabyaaladda maxaa yeelay dhibka ay keentay waa midka qurbaha idinku soo xareeyey waay meel kaba adoon ka fiirinay waxa halkan idin biday oo qurbaha idin keenay oo ilmihiinnii iyo guryihiinnii iyo caruurihiinnii khatarta geliyey oo midhihan khadhaadh aad ka goosanaysaan waa aahaartii qabyaaladda marka waxaan u malaynayaa waa darsi mudnaantiisa leh in aad loogu celceliyo in badanna runtii waa laga hadlay mu'tamaraadka iyo culimmada iyo si guud iyo si gaarba waa looga hadlay waxaan jeclahay marka mowduuca in aan saldhig uga dhigo aayadda qur'aanka kariimka ee ku jirta fii suurati alxujuraat alla yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir aayaddaasi waxba kama tegin wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala dadow waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig xaggood laba ruux baad ka timaadeen asalkiin mid waa lab waa aadam
midna waa dhadig oo waa xaawo labadaasaan asal ahaan idinka abuuray طبعا sida quraanku sheegay labadoodu haddana asal ma wada ah dakarka asal ah laana xawaa waxa laga abuuray nabi aadam laftiisa laga abuuray oo labka ah asalkaasi quraanku tilmaamay wuxuu inoo cadaynayaa abtirka kuma kala fiicnidin asalka isku mid baad ka tihiin xadiidkii nabiguna waa midka tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullukum min aadam wa aadam khuliqa min turaab dhammaantiin aadam baad ka timaadeen aadanna carraa laga abuuray halkaa waxaa lagu tilmaamayaa oo lagu caddaynayaa asalku waa isku mid hal aabbo iyo hal hooyo carruurtood baa tihi ka cad ka madow ka maariinka ka cas midka gaaban midka dheer midka tirada yar ka tirada badan ka la yaso midkaan la yasin kulligiin hal asal baad ka timaadeen nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid uu ku fasirayo uu leeyahay aadam waxaa laga abuuray min jamiici alardi dhulka oo dhan baa laga abuuray bimacnaa dhulka qaybihiisa kala gedisan xagga midabka iyo dabeecadda dhoobo wixii oo dhan wadataa laga abuuray aadam markaasay carruurtiisii waxay ku yimaadeen carradii laga abuuray dabeecadahay wadatay iyo midabaday wadatay bay carruurtiisii noqdeen asalku maaddadu marka waa carrada wuxuu nabigu yidhi sal lla alay wasalam carrada laga abuuray qaar waxay ahayd madow qaarna waxay ahayd guduud qaarna waxay ahayd caddiin intaasoo laysku daray baa midabku carradu ka koobnaa carruurtiisii waxay ku yimaadeen mid madow oo ka soo jeeda carradii madoobayd asal ay u tahay mid guduudanoo carradii guduudnayd asal ay u tahay mid cad oo carradii caddayd asal ay u tahay mid intaba isku darsaday oo midab kaloo maariina qaatay dabeecadihii carradu ay lahaydna ee dhulka ay kala timidna dhulku midna waa mid suubaanahoo adag midna waa dhul dabaxsan oo jilicsan dabeecadihii carruurtuna sidii bay ku yimaadeen dabeecaddeenu midna waa suubaan adag oo qallafsan oo macangeg ah midina waa sahlan yahay oo waa dabacsan yahay xaggee ka timid carradii aadam laga abuuray baa sidaa ahay macaanidaasi waxay tilmaamaysaa asal aad ku kala fiican tihiin ood isugu faantaan oo aad ku kala sarraysaan oo aad ku kala qiimo badan tihiin ma jiro mid inaga inaga mid oo nuur laga abuuray ma lihin mid inaga inaga mid oo laga abuuray dab laga abuuray ma jiro mid maaddo kale laga abuuray ma jiro asalku hadduu isku mid yahay waxaa dadkan kaga fiicnaan karto ma aha dhalasho marka dhalasho kagama fiicnid abtir kagama fiicnid taa iyadaabaa meel la saaray markaasuu nebigu daba dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh asalkiinnu hadduu isku mid yahay laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin mid carab ah mid cajami ah wax fadli ah lama dheera mid cajami ana mid carabi ah fadli lama dheera ilaa bittaqwa waa arrinta aayadda akhirkeeda ku imaan doonto halkaa waxay marka inoo asaloon helay in dadka lagu kala fadilo oo lagu faantamo abtir iyo dhalasho iyo nasab waa wax ka baxsan ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnadiisii iyo nidaamku jideeyey waana waxaan jirinba waa arrinaan xaqiiqo lahayn
وأرنا نصلهين وأرنا نراد لهين كان آد يسيسو اسكميل بعد كسو جدا كان آد محو أهاي آد هوسو فيرينيسو الحقيريسو اسكميل بعد كسو جدا مركا waxa aad kaga fiicnaan karto miisaanku ma aha dhalashay roorta meel inaga dhigta iyada ya ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha asalkaasi horta masaladaas uu inaga qanciyay jahiliyada marka ayaa keentay in dadka qaarkood nasabkooda iyo dhalashadooda lagu yaso oo la yiraahdo looma guuriyo lagamana guursado oo la yiraahdo la takooro oo hangool la isaga qabto hoos loo fiiriyo waxa keentay aadamuhu markuu ka fogaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala asal ku jideeyay bay jaahiliyadaasi soo gashay kullama ay aadamuhu ka fogaado ilaahay waxyigiisii iyo asal ku jideeyayna jaahiliyaadka noocaas nolosha way saameeyaan ibn aadam taariikhan waa sidaas nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiis saxiix ah wuxuu ku leeyahay dhowr arrimood ummadaydu dayn mayso kufri baana ku jira dhowr arrimood kufri baa ku jira ummadaydu dayn mayso waxaa ka mid ah al-fakhru fi al-ahsab sharafkii awowiyada iyo aabayaashii in la isugu faano wa-ta'nu fi al-ansab nasabyaalka in la duro oo dadka nasabkooda wax laga sheego iyo in xidigaha lagu roob doono arrimo jaahili ah oo diin la'aan ah oo jaahiliye laga dhaxlay waa nabiga sallallahu alayhi wasallam umadayduna dayn mayso wax laga kaleeyo ma asalkaasi marka horta inaad wax ku qaybsatood fahantood miisaan ka qaadato haddaad tahay adoon ilaahay yaqaano u hoggaansan waa laga maarmaan qodobka labaad ee aayadu taqriirisay waxa weeye waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'il aabiyo hooyo markay idin dhaleen kadib baa waxaan idin ka dhignay qaran shacbiyaal iyo qabiilooyin shacabka iyo qabiilku waa kala weyn qabiilku waa ka hooseeya shacabku waa qaran waa mujtamac meel wada degan isku muxuu ahaayay ama wadan ka dhaxeeyo ama wuxuun wadaaga Soomaali baa la dhihi Arab baa la dhihi fulaan baa la dhihi Turki baa la dhihi waa shucuub waay shucuubtaas waxa ka hooseeya shucuubtii u kala baxdaa qabiilooyinka iyo shucuubta maxaa la idin ka dhigay annaga mayna la imaanin mana aadan samaysanin ree hebel inaad noqotana waxaad adigu dooratay ma aha adiga ikhtiyaarkaaga ree hebel maada ku noqon ina hebel lamaada ku noqon yaa kaa dhigay allah tabaaraka wa tacaala waja'alnaakum annaga idinka dhignay baa ilaahay tabaaraka wa tacaala wax ilaahay kaa dhigayna oo ku siiyeyna dadka kaleeto kagama fiicnaan kartida waxaad kasbatay baa dadka lagaga fiicnaadaa waxaad shaqaysatay oo adigu kasabtay oo aad ku dadaashay oo soo saartay baa dadka lagaga fiicnaadaaye wax rabbi bixiyay tabaaraka wa tacaala oo ku qasbantood ilaa ba aad tahay ilaahayna kaa dhigay magac laguma helo qiimana laguma yeesho dadkana lagagama fiicnaado marka shucuub iyo qabaa'il ilaahay baa dadkan ka dhigay marka hore asalkoodii mid ka dhigay kadibna inay kala baxaan oo ay qabiilooyin noqdaan oo ay jilibyo noqdaan oo ay lafan noqdaan oo ay shucuub noqdaan waa qorshe rabbi tabaaraka wa tacaala uu sameeyay waa su'aasha waxay tahay marka muhiimka ah qabiilooyin in dadka laga dhigo shucuub iyo qaramo laga dhigo xikmadda ku jirta maxay tahay الله تبارك وتعالى وعده كما هرينه وحوري لتعارفوا إن اسكرتان oo lagu garto
abtirkaaga la garto qabiilkaaga la garto qarankaad ka soo jeeda la garto waddankaad ka soo jeeda la garto maxaa ku jiro xikmad ah in qabiilkaaga la garto nasabkaaga la garto qarankaaga la garto xikmado badan baa ku jirta bal nolosha bini aadamku dhan waxayba ku salaysan tahayba in inta la garto haddii la garan waayo nolosha dhan baa isku dhex yaacay saas daradeed baa nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixa تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبيالكينا وحاد كبرتان وحاد قرابدينا كحريرسان نسبك إن لبرتو وأبترك لبرتو وددك سيدي كوكا لحيقان لبرتو وإنتي كوكا لجيران لبرتو وأري النبي وأمري صلوات ربي وسلامه نسبك إنو جيرو يطلشدنا ومقصد كم إذا مقاصد الشريعة وإلى لسي ولبا إلى لسي أحكام فربضان باللود شيء إنه نصبك إلى شناده وحتى وحي سوق لها لقى إلى عليه أحكام فربضان لو كنترتها أحكام تكنترتها وحكم إذا هل يسكور سذا ليلي دمر كأد قرصن كرتو iyo dumarka aadan guursan karin hadii nasabku lumo lama kala garan karo sooma litaarafu inaad la garto dhalashada iyo nasabka waxa ku xiran yaa guurkiisu ku banaan yahay yaanse guurkiisu ku banaanayn wayla haduu nasabku lumo habariyarta iyo eedada iyo walaasha iyo gabadha adeerka u tahay baa dhici lahayd in ay reer ku noqoto markaana ay lunto asal weyn oo ibn aadamka jiritaankiisa qayb ka ah ahkaamta ku jirtay kamid waxa kamid ah masalada weyn ee dhaxalka ruuxi markuu dhinto xoolo ka tago yaa dhaxlaya yaa dhaxalkiisa iska leh yaa xoolahan iska leh waxay ku salaysan tahay in nasabkiisa la garto xididkiisa la garto say u kala sokeeyaan la fahmo way la dhaxal ma suuroobi karaba dhaxalku wuxuu ku fadhiyaa in ruuxan la garto qaraabadiisii dhinac kasta ka imanaya waa nasabka waxa kamida ahkaamta ku fadhida qabiilku waxa loo yeelay oo nasabka loo ilaaliyay in la isku xiriiriyo oo nooc iskaashi iyo wax wada qabsi away nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ruuxi jecel in cimrigiisa loo dheereeyo rizqiisa loo waasiciyo qaraabadiisa ha xiriiriyo qaraabo goyskana waa ahlu naar qaraabadaada inaad xiriiriso ay waajibka kugu tahay waxaad ku garan kartaa oo nasabka inaad garato dadku siday kugu kala sokeeyaan saas daradeed baa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sadaqada la siiyo ruuxa qariibka ah ku dhow laba ajir bay leedahay sadaqatun wasila bu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa qaraabo xiriirsnimo ajirkeed iyo ajir sadaqa labaduba ku jiraan nooc iskaashiya oo kii tabarta darnaa lagu caawinayo oo kii liitay lagu caawinayo oo reerka kii rafaadsanaa laga warhaynayo oo la isku xiriirinayo wax la isugu qabanayo weeyaan nasabka iyo qabiilka xikmadda darteed inuu jirana waa loogu talagalay oo waa ka xataa shariicadu waajibisay diyada iyo makta markuu dilku gaf yahay oo ruuxu si ku talagal la'aana uu ruux u dilo magba ka waajibaysa magtaasi waxay ku waajibaysaa sida xadiidka nabiga ku soo sallallahu alayhi wasallam qaraabadiisay ku waajibaysaa caqiladay ku waajibaysaa xadiidka fi sahih al-bukhari baa ku tusaya in adeeradii kuwa siixiga baa laga rabaa magtaa inay bixiyaan sababtu waxay tahay
dilka khaladka ee gafka ku dhacay ruux kasta waa ka dhici karaa waxaa loogu talagalay in la iscaawiyo jiritaanka marka nasabka iyo qabiilka xikmado fara badan oo la koobi karin iyo ahkaam sharciya ku salaysan meeshaasi marka li tacaarafu inaad isgarataan waa haddaan la isgaranin oo dadku isku dhaxyaacaan oo dhalashadii iyo nasabkii wax kasta aan la kala saarin waxa iimaanaysa in hatta ay isku dhaxyaacdo waxyaalo asaasiya oo noloshu ayna ka maarmin oo dadkii la kala garan waa la kala saari kari waa maanta dad u fiirsataan Soomaalida markii dawladeedii burburtay oo nidaamyadii oo dhan ka baaba'een dadkii dibadda soo aaday oo dadinku ka mid yihiin dadkii xagga laga yimid oo account aan lahayn oo in badan oo kamid ah documenti ayna lahayn waxa la isku garan oo lacagta la isugu diri oo shirkaduhu wax ku siin oo lagu raadin ruuxii waa qabiil Sooma waa reehebel buu ka siiyay intaasaad meeshan ka qoraysa meel alla meeshu jiraba waa la keeni ruux kalena kuma khaldami karo lacagtiisina waa la siinaa marka waxa weeye dhanka marka loo isticmaalo oo tacaarufu loola jeediyo ahkaamta ka dhalanaysa horta nasabka iyo dhalashada iyo qabiilku inuu jiro waa mas'ala asaasi ah nabigeennuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qabiilka ma baabi'inin diintani markay timid qabyaaladii bay baabi'isay iyo qabiilka sidii xun loo isticmaalayay laakiin qabiilka jiritaankiisa ma baabi'in hatta ugaasiyadii ma baabi'inin ugaasiyadii salaadiintii يعني رجي مدح دقامات كأوها قبيلوين نبي ما ترترين صلوات ربي وسلام عليه سيدو دي بيوتشرين حتى إنه ترتر إسكاب الداية مبدلين لما هي النبي صلوات ربي وسلام عليه ونين غير سلطان شجرة كتوري ونين كانوا كبدلين هل نبتشر نين كاسين وحوها غير كسلطان كأوها فكسر عبتي وحي له ونين عن أضاقوا بخير ورجال النبي وحول صلى الله عليه وسلم نين بخيل وقاس من نقون كره كوان إني كبدل هيل بان إني كبدل النبي صلى الله عليه وسلم لأنك مضحضة ده بعدها وأساس سنة لجرة وحكم إنه قعان فرين نين كاس النبي كبدل السجنة غير كيسي وبخيل لما كل شيء كهيد دافور النبي صلى الله عليه وسلم نين كلا النبي كبدل متشرو حتى مجالدي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لو الرهر بأوحك بدنا أوس إيه خزرج بأوحك بدنا لو أن بأوجاس يكاها سعد بن عبادة إيه سعد بن معاذ سيدو دي بأوجاس وهاي وحي مجالده أوجب بهذا حولها الرهرك أوجب بهذا أيقو النبي وكلت شنتري صلوات ربي وسلام عليه بعدين فربضن طبعا يقدس مرك إسلام كسيدي سبع قبيلك إيه النصبك وو إلى الياوو لساي مدميو halka waxaan rabaa inaynu kala saarno marka oo inuu kala fahanno qabyaaladda iyo qabiilka waan arin daqiiqa waay qabyaaladdu waa in qabiilkii loo isticmaalo si xun oo shariicada aan waafaqsanayn qabiilkii loo isticmaalo in dulmi la isugu hiiliyo nasabkii iyo dhalashadii loo isticmaalo in dadka lagu yaso in dhiig lagu daadiyo in wax lagu kharibo in wax lagu burburiyo sida markay noqoto waa qabyaalad ee qabiil ma tu quraanku sheegay lana ilaaliyay waa qabiilka iyo nasabka ama qabyaaladda maya qabyaaladda waa mid shariicadu fogeysay way muhiimadaasi marka waxa weey waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila لتعارفوا إن إسقرتان إيه حكمة كتير النصب كإنه تشرو إيه إنه قبيل كتيرو ومثله شرع عدم مقاصد هذا كمان إنه تشرتوا إنه بابا أذنا معه إنه بابا أذنا إنه سي تشرتوا حكمة كتير درادة الله تبارك وتعالى مركا كذب وحول إن أكرمكم عند الله أتقاكم روح إلهي أكتيس إذن كو كرامة بدن إذن كو شرف بدن وامدك إذن كو عبس بدن ميزانك واكا مرك
هنا المحك ميزانك الرسمي قال دونيه إن عدتك كم ميزان تواك معها أصل كي والقلة وداقة معها قبيل والقلة وداقة أما هلقا يراد أما هلقا بدناضو تادتك كما في حديد إلهي باكار لغا إسكمادا لغن لكن ماشا لغو كالبيحي وحوي ميزانك دادك كلا سارية نين حن إيا نين فيعان إيا نين قنأة إيا نين قبأة إيا نين سرع إيا نين هو سكر لغاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم كإذن كو شرف بدن إذن كو كرامة بدن واميد كإذن كو عبس بدن إذن كو الدين بدن إذن كو إيمان فيعان إذن كو أعماش صالحة إذن كو فيعان الله كعبسك حمان تقول لك تقو خير كل وجود داله كإذن كو فيعان با إذن كو شرف بدن شرف مركة هي مقع هل كاسو كتيره ميزانك وكا وكان النبي يقول يجري صلوات ربي وسلام عليه ملكه يقول لا فضل لعجمي على عربي ولا عرب لعربي على عجمي إلا بالتقوى أبو النبي صلى الله عليه وسلم وحي كوكلا في عنان كرا ويكوكلا فضل بنان كرا وأن الله كعبس نينك إلهي كاغا عبس بدن أو كا تقوى في عن أو كا عبادة في عن أو كا إيمان في عن نينك سوى كا شرف بدن يهي أما كتر بدنو أما كرقال بدنو أما كرسي يعني بحو مدحني ما كفردي وحاسو دان شرفك كما يمادو ميزانك ربي وإن الدين له سيدا ددك uga diin fiican tahay baad uga sharaf fiican asalkaas waa ka inaga marka maxaan ka dhignay meeshay arinteenu ka khaldantay waxa weeye meeshay ahayd inna akramakum inda Allahi atqaakum ayaa waxaan ka dhignay inna akramakum inda Allahi aktharukum nafaran ninka ilaahay agtiisa idinku qiimaha badan idinku sharaf badan waa ninka idinku la dheeraysan waay falsaan u badal fiiri waa miisaanka dhexdeena ka shaqeeyo waay afka mayna kaga hadlin honin isla soo taagay ma jiro laakiin miisaanka rasmigan ku shaqeyno waa sidana meeshay balaayo inaga asiibtayna halka waa maqaayiistii mawaaziintii shariicadu ugu tala gashay in dadka lagu kala fadilo kaas waa nabi wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi dadku waa laba wax sadexay ma jiro taqiyun kariimun ala Allah nin Allah ka cabsada oo baari ah ilaahay baari waa ilaahay agtiisana kariimku ah sharaf ku leh mid shaqi ah faajir ah jidka uu maray uu yahay jid ilaahay tabaaraka wa taala uu raali ka ahay akharana ilaahay agtiisa naar iyo cadaab ku leh labada uu weedadku kaas faajirka jidka xun qaadayna ilaahay agtiisa qiimo kuma leh kan jidka wanaagsan qaadayna waa ilaahay agtiisu karaamo ku leh karaamadiisuna kolba waxay ku xidhan tahay qiyaastu ilaahay u dhaweeyay taasay dadku ku kala tagayaan miisaanka marka saxda ah ee loo baahan yahay in nolosheena ay ku saleysanto ka isaga nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyay man akramun nas rasuulullaahi oo dadka yaa ugu karaamo badan dadka yaa ugu sharaf badan markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam atqaahum hada ugu cabsi badan ee ugu diin badan waxay yiraahdeen laysa an hada nas'aluka taakuma na weydiinin bade markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa yusuf نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله هذا السؤال شيء نصاء هين وتكوتان دلشة أهان ضدك يا أبو شرف بدن يوسف أبو شرف بدن والنبي أبيين النبي بوها هو نبي يعقوب صوما أوجين النبي بوها هو نبي إسحاق أوجي صلباننا وخليل الرحمن إبراهيم صوما لما هي الكرو نين إسقون النبي سدح النبينا كو أبتر صدا ويوسف هين لما هي الكرو شرف ضل شهد ضربته القاسو قلي وركاسا واحد هذا ليس عن هذا نسألك وده تاكم أنا ويديني ما حد ويديني زانور
مركز النبي يقول فهمي سؤال شو ذي وحولي فعن معادن العرب تسألوني ما أصوش إيه قوائش عربات بعد حيقوي دين إنسان هذا ده مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أنت ينصو إسلام إنه إسلام ككهر كوادي أجو أخيار سنة أيام مركي إسلام كالصوغ قالنا أجو أخيار سن مركي دين تفهمان أخيار نمدي الجاهلية أم الله صو إسلامين وأخيار كوي حديث كاسي مركي وحط المامية من أكرم الناس أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قاعدة مركي تاية دوا نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه مجتمع يقول الشيء ري مدينة ري مكة كدي من المدينة أساس كاسو كودس وحسن مي ودولة دي النبي صلى الله عليه وسلم هي مجتمع رسي كسن مي نيكي لا أدون سنشري إيه مدوبان أدون كأها هي نيكي قريشي كأها إيه هاشمي كأها إيه عرب نصب أهان وقسري أيا سنمي labadaasi markay sinmeen oo la arkay bilaal oo adoon ah oo sayid ah oo kor loo qaaday wax alla wixii qalbigiisa khayr ku jiro dhan diinta waa jeclaaday diin aan cunsuriye lahayn oo wax kala soocid lahayn oo ruuxa amalkiisa ku qiimeynaysa oo tartama idin la tartama waxa la timaadon baa wax lagu siin midab kuguma fogeynayso dhaqaale xumo iyo faqri lagu nicmaayo kan kugu dhaama inta lagu soo dhawaysan maayo laakiin inna akramakum inda allahi atqaakum inta kaliya nabiga kagama hadhina salawaatu rabbi wa salaam alayhi markuu intuu soo hijrooday magaalada Madiina yimid qodobadii ugu horeeyay ee uu ku tilaabsaday markuu masaajidka dhisay masaajidka lagu bilaabo shaqo la bilaabo وحيالي أقوه الرئي النبي بالله وحي أهيد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ضدكي ماشي اللوغي مدى الرئي مدينة إيا ولا له هذه مككي مدى النبي قال للسعودي أما كسوه الرئي إن الله يسكو حره والله ولا عليه نين كستو مهاجري وحا ولا اللوغة لغي نين أنصاريا وولا الكامل قود إيا قاران بواد وذاكتان guryaho dii baa la geeyay wax walba ay la wadaageen hatta waxa laga dhigay dhaxalka hatta uu ku dhaxlay adiguna waa dhaxal saasa markii hore laga dhigay dib baa laga bedelay mooyee si mujtamacu isu dhaxgalo oo fawaariqdan deegaamadu u baabaado ila deegaamo kala gedisan baa laga soo jeedaa oo qabaa'il kala gedisan baa laga soo jeedaa si arinta iyada ah mujtamacu isu dhaxgalo si dhab u walaaloobo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu isugu xidhay laba وأنا إصلح لي سامبول صلوات ربي وسلام عليه أرنتاسي وحي أهي داوة وين وحانا كسو بحي مجتمعات قرانا إنسان تاريخ ذا اللي يقانا أدون كسجلي النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه وقصي ومد مرك هل كاسو النبي مريي قرآنكم مريي سنة النبي مريسي صلوات ربي وسلام عليه طيب مركي قاعدة دا إيا أصل كا إيا ميزان كا لقال له oo lagu badasho in qabyaalad ama kooxaysi ama gobolaysi ama wax saasoo kala la isku naco oo la isku fogeeyo oo la isku soo dhaweeyo oo ruuxa ay noqoto aniga yaani hiilkaygii hoogaygu waa reerkayga oo ay noqoto kabtaada iyo reerkaaga waa lagu dhex jiraa dadkaaga ka dhaxbeen tolkaaga iyo kabtaadaba ku dhax jira oo ay noqoto sidii carabtu dhigi jirtay wa hal ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaytu wa in tarshud ghaziyatu arshudi anu reer ghaziya baana ghaziya haday hagaagtana waan la hagaag ghaziya haday halowdana waan la halowsanay waxay tahay baana sooma reerkaygaan ku gowracnahay waxay yihiin waa la ahay go'aankay qaateenna waa la jira ciday col yihiin col baan la ahay ciday heshiis leeyihiin heshiis baan la ahay
ciiday la dagaalamaan dhiigoodu waa ii bannaayahay masaladu markay sidaa noqoto xaaja halowday maxaa iimaanaya marka waxa iimaanayaan idin sheegay waxa nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi miisaanka marka laga leexdo kow wuxuu dhaawacu gaadhayaa waa dhibaatooyinka ka dhalanaya dhaawacu marka ugu horeysa wuxuu gaadhayaa dadka iimaankooda mas madaxa laga dilaayo salka diinta oo iimaanka ah buu dhaawacu ku bilaabanayaa markii iimaankii dhaawac gaadho dhaqankii oo dhanna dhaawac baa gaadhaya inuu dhaawac gaadhayo waxaa ku tusaya nabigeenu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam awthaqu cura aliimaan alxubu fi اllah waalbugdu fi اllah waalmuwaalaatu fi اllah waalmucaadaatu fi اllah iimaanka guntimihiisa ama sidooyinkiisa ama gantooyinkiisa kuwa ugu adag qaybihiisa laga wado iimaanka qaybihiisa kuwa ugu adag waxa weeye inaad ilaahay dartii dadka u jeclaato ilaahay dartii u nacdo waxaad nacayso ilaahay dartii u xidhiidhiso waxaad xidhiidhinayso ilaahay dartii ula coloodo waxaad ula coloobayso iimaanka asaal usuushiisa waa weyn ee asaaskaa waa markay noqoto jacaylkaygu waa reer waa deegaan nacaybkayguna waa deegaan iyo reer xidhiidhintaydu waa reer fogayntayduna waa reer soo iimaankaaguma dhaawacno bal iimaankii guud iskaba dhaafay asalkii iimaanka wax si ka yihi oo nabiga xadiidkiisu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam dhaawac jira xadiidkii Abdullah ibn Abbas wuxuu ahaa man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa aada fillah faqad istakmala al-iiman ruuxi ilaahay dartii wuxuu jeclaada ilaahay dartii u naca ilaahay dartii u xiriiriya ilaahay dartii u colooba ruuxaasi iimaankii waa dhameystirtay maxaa laga fahmayaa ruuxan sida yeelina iimaankiisii waa naaqusay mafhuumka xadiidku waa saas ummad marka iimaankeedii naaqusay waxa ka dhalan karaay midho xun baa ka soo bixi waxa kaloo ka dhalanaya oo labaad ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ummadda duleeyo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa la yantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim alladhiina maatu dad weydaynayaan faanka ay ku faanayaan aabbayaashoodii dhintay oo haddana jahannama dhuxusha u ah odayaal dhintay oo xumaan ku dhintay oo jahannamo galay oo dhuxushii jahannamo noqday faanka aad ku faanaysaan waa daynaysaan haddaad dayn weydaan soo maaha aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljucal buu nabigu sal lla alay slam ama waxay noqon doonaan kuwa ilaahay agtiisa ka liita bahalka la yidhaahdo xarwalwaalka ama kolba saad u taqaanaan doolshaanka soo doolshaan lama yidhahdo alladii yudahdi'u alkhur'a bianfihi midka saxarada ibni aadamka xaarka ibni aadamka intuu duuduubo yuu madaxa ku riixaa waa duwaybo yar dadka baadiyuhu way yaqaanaan laakiin dadka reer magaalka waxaa laga yaabaa inaysan garanayn duwaybo yar waaye ibni aadamku markuu saxarada ka kaco intay u soo dabamarto ay duuduubto oo sida banoonigoo kale ka dhigto ayay madaxa ku riixi say u dilaandilinayso u riixaysay godka la gelay way cuni marka waxaa la yidhahdaa soomaalidu dhaha doolshaanka ama xarwalwaalkaasi wuxuu la qabsaday wax qarmuun sidaas daraaddeed wax udgoon maba arki karaba waxay yidhahdaan haddii cadar aad ku buufiso cadar wuu dhiman bay dhahaan barfuun haddaad ku buufisay wax udgoon wuu dhiman bay dhahaan sababtu maxay tahay wax qarmuun buu caadaystay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka wuxuu leeyahay dadka qabyaaladda ku dhaqmaaya iyo faanka awowyada iyo aabbayaashu ilaahay agtiisa waa kala liidanayaan xarwalwaalkaa saxarada riixaaya ee cunaaya xadiis waa xadiis saxiixa waxay culimmadu yidhaahdaan liidnaantu dhowr dhinacba way ka imaan waa mida horta ummadda ilaahay waa burburinaya xumaanna waa badaya sharafteedii iyo qiimaheediina waa baabi'inaya soo inama haysato innaga ya soo inama haysato
aaway qarannimadii oo aaway magacii oo aaway dawladdii oo aaway dadnimadii oo aaway ixtiraamkii adduunka laynoo hayay aaway soo meel walba maynaa noqon inuu muxuu ahay qaxooti ay dhaqaato soo maynaa noqon oo maxaa dulinimada ka badan maxay tahay halkaasay ina baday waa midda labaade allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sallidayaa sida xadiista ku sugan cadow ka xoog badan waa natiijo labaad cadow ka xoog badan ayaa lagu sallidayaa markaasuu dhulkoodiina qaadanaya khayraadkoodiina qaadanaya ayaduna soo inama haysato wayna haysataa dhulkii Soomaali ay lahayd idinkuna waad ka soo tagtay intii idinka dambaysay hadday soo qaxday in la qixiyana waa maqsuud in bannaanka loo saaro waa maqsuud 20 sano 30 sano 50 sano soo socota waddanka yaa lahaan doona baa laga doodaya yaa lahaan doona waxyaalo fara badan oo shalay la yaabi jirnay maanta lama yaabanin 30 sano kadibna maanta waxaan la yaabanoo rumaysan laanahay waa laga yaabaa inaan rumaysan sooma dulinimo cadow ka xoog badan oo gacanta kugu dhigay lagugu salido dulinimada waxaa ka mid ah xadiisku tilmaamay culimadu say sheegayaan dadku markay qabiyaaladaasi intay ku dhaqmaan ilaahay ciqaabo oo duloobaan sidoodaba wax wanaagsan oo udgoon noloshooda ma aqbalayso wax udgoon mabda macaan mabda qaaliya wax uraya umay rabaan sooma baluufis meel kasto la isugu tago reehebel iyo reehebel baan fahanaa laakiin qaran iyo ummadnimo iyo iskaashi iyo midnimo ma fahmi karo sooma ma fahmi karno way udgoon tahay waa barfuumkii dilaya xarwalwalka laakiin reehebel iyo jilib hebel iyo koox hebel iyo gobol hebel waa xaarkii uu xarwalwalku riixayo waay taa uma fahmi karno sooma mabaadidii udgoonayd ee qaaliga ahayd ee basharka gaalka iyo muslimku isku waafaqsanaayeen midnimo iyo qarannimo iyo jiritaan iyo isu imaad iyo dad kale raadso xataa haddaad yaraato ummado kale isku soo biiri halka marka caalamku u sii jeedo annaga hoos baan isu rifaynaa reehebel kasiitag reehebel sida basashii un adigu iskala fiiq kolba qayb tuur kolba yaa kuu soo hadhi macnaheedu waxa weeye marka yani wixii udgoonaa baa ina dilaya xataa haddaad qurbaha la yimid qurbaha haddii la yimid oo gaalo waddamadooda la yimid oo khatar lagu jiro carruurihiinni ay xidhan yihiin carruurtii xidhan yihiin gurihii khatar ku jiraan diin ahaan iyo adduunya ahaanba halis aad ku jirtaan waxaa la samaystay wax la yidhaahdo jaaliyado waa magaca reer magaalo qabiilkiibaa waxoogaa shaati kale loo geliyay waxaa la yidhi waa jaaliyado war waa jaaliyada hadhihina waa reehebel dhah khayr allah idin siiye ya waa reehebel saasay ku quruxsanta jaaliyado xafiisyo leh barnaamij ka shaqeeya kobolaysi warkaalaya isu yimaada waddamada qaarkood dawladihii loo yimid baa waxay ka shaqaynayoo leeyihiin war hal af noogu imaado idinkoo Soomaaliya noo imaado ma waxaas haddaan Soomaali noqonayna waa horaan noqon lahayn baa leeyahay waa horaan Soomaali noqon lahayn ilaahay baan idinku dhaariyay soo xadiidka nabigu inuguma ruboobin salawaatu rabbi wasalaamu calayh aw la yakunanna ahwana cala allahi min aljucal alladhi yudahdi'u alkhur'a bi anfihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummad baabkaa gashoon duloobina lama hayo taariikhaan markaa dib ugu noqotaan oon taariikhda dib u akhrino waddan Soomaaliya ka qaalisan waddamo Soomaaliya ka qaalisan bay qabyaaladda iyo gobolaysigu gacanta ka bixiyeen waddanka la dhihi jiray Andalus waa waddanka loo yaqaanay al-firdaws al-mafquud baa la dhahay firdawsadii la waayay 800 oo sano bay muslimiintu ka talinayeen
sideedda boqol ee sano xadaaradii ugu cajiibsanayd ee adduunka soo martay bay ka istaajiyeen waana la isku waafaqsan yahay gaal iyo muslimba horumarkan iyo xadaaradan iyo tiknoolajiyadan reer Yurub ee xadiidka ah waxay ku taagan tahay oo ka dhuxul qaadatay xadaaradii iyo horumarkii muslimiintu ay ka sameeyeen Andalus halkaas ay ka dhuxul qaateen oo horumarka reer galbeedku halkaas suba ka bilowday cilmigii horumarkii xadaaradii muslimiintu ay istaajiyeen dhulkii qaaliga ahaa ee saa u yaalay qiimaha badnaa taariikhda lahaa 800 sano muslimiintu ka talinayeen maxaa lagu waayay bay idin la tahay reebel baa lumiyay qabyaalad baa lumisay gobolaysi baa lumiyay hunguri iyo kursi la isku laayaa lumiyay ilaa markii dambe ay gaadheen nimankii duwaylaadka samaystay dawladaha yar ka samaystay dawladaha yarka waa landis gaada waa landis duwaylaadka aad maqlaysaan Andalus lumiyay waa landiska Soomaaliya dadka jira laana waxa way marka hore qabiil iyo nin yaani xiniya iska taabad iyo kuraasi bay ku bilaaban marka dambana waxay noqon hal kala googoosto marka xigtana waxay noqon ayaga in la isku diro oo qorta la isu galiyo leeyahay xuduudaas aad kala leedihiin war adiguna iska celi iyagii ba qorta isugu jiro islaynahayo dhiig daadinahayo isqaribayo hantidoodii ku baabiinaa inta kaliya looga hadhmaaye waxay noqonaysaa in ay ayagu marka cadawgooda u kala cararaano midba uu ka kale cadawga u soo raaco sidaas Andalus lagu qabtay mid baa tagay Faranjigii buu soo kaxaystay walaaladii buu ula saftay waxa lagu akhriyay adaan dhulka ku qabanayna adaan kula jirnaa dhulkan markaan qabanana adaan kugu wareejin walaalihii buu ka takhalusay asagoo tabar daran ba maalintii dambe inta la qabta isagana laga takhalusay markaas waxa ku rumowday ukiltu yawma ukila athawr al-aswad aw al-abyad ya al-abyad dibigi madooba maalintii la cunay baa la cunay xaaja kuma taala markaa sooma musiibadaas oo maxaa dhalay waa su'aal waxa soo musiiba maxaa dhalay waxa soo musiiba qabyaalad baa dhashay waxa dhibaato idin haysato dhan Soomaali meel ay joogto dhan haysata dhulkeedii haysta qaxan hadda cusub ee laga sheekeynay ummadan jidka ku baqtiyaysa umulaha jalla'aanta ah masaa'ibtan waxa dhalay waa qabyaalad ha ahaatee qabyaaladu dadka ma wada gelin rag baa ku adeegtay xaqiiqadeeda marka la yiraahdo qabyaaladu waxay noqotay gaadiid la fuulay oo rag ay ku dangaadeen ayaguna dantoodii meena gaadhin nin kursi raadis ah oo jaga raadis ah oo maslaxad doon ah oo isagu dantiisa u socda baa wuxuu isku qanciyay dantaada ma gaari kartid magacan qabiilka intaad huwato awoodiisa iyo dadkiisa ku dagaalgal kursigana ku gaar kulli wixii jabhada wadanka ka kacayo dhan waxaasay ku soo day ninkii watay kursi doon buu ahaa inuu kursi doon ahaana waxa ku tusaya nin kasta markii loo yimid oo la yiri wareerkii intay la tashaday la yiri warmaya hawsha wareejiya ayagii buu isku laayay haddana gudahooda waa baabi'iyay in badan oo kamidana maanta qabriga ku jiraan soo saasma rag marka jaga raadisa oo jaga doona oo hunguri doona oo xoolo doon ah baab mashruucan ummadda geliyay sidaana ugu burburiyay annagana waxaan noqonay wama ataakum ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum innaga u diyaarsanayn inaan aqbalno mashaariicda noocaas Soomaaliya warka murtidiisu wax waay marka la soo ururiyo maanta Soomaali cid aan ahayn hadii la yiraahdo darsi qabyaalad u akhri cid aan Soomaali ahayn oo dhibka qabyaalada aqoonin waxaan isleeyahay macquul bay ahaan lahayd laakiin nin dabkiiba ku gubtay oo ku murxay u sheeg dabka waa lagu gubtaa ka war dabka waa lagu gubtaa maanta dhan ku celcel wuu gubtayba waana murxayba sooma tawfiiq ilaahay baa inaga maqan mooyee
لكن فهم قبيالة ذي إنك ما مقنا سو سيدا اسمها مسألة توفيق إلهي بقى إنك مقنا لكن فهم قبيالة ذي ما أنت ضدك لقد عاد علها الله آخر لها منهن وابكوكو بالنيبة لكن حقيقة وحيتها نبي قالنا وحده صلوات ربي وسلام عليه حديث كسوغان فتنكم مركي بطان وديك دادناي iyo kharbudada iyo bililqaysiga iyo xaraanta la banaysto dadka waxa Allah ka dhigaya buu Nabiga sallallahu alayhi wasallam uquusha iyo garashada laga saaraya wax Allah wixii aqli iyo garasho ah waa laga saaraya Nabigu markuu yiri waa islayn doontaan darisku dili doona eber baad iska dhigi doontaan waxay yiraahdeen ma anagoo aqliga nagi leh ma anagoo aqliga nagu jiro ما يوحد ضدك وقتك إيمان دون حقوش على قاعد دونا إلهي تبارك وتعالى وحي خير هينا وافج حولها وحلا إلى هذا أرجع إيوه حولها ضدك نيجي راعي تشري وقرني حولها مركز أرجع فوفيسو وصوت داكس وسوق دور كذاك أي دواء عقش أما ورابك قالوا أما تشيفها قالوا ونف كريت oo arigu dido araro maalinta dambe xataa dhowr bari kadib maalinta dambe dad arigii soo kaxayso oo kayntii iyada ahayd aad ku dareeriso naftu ma siinayso arigaasi inuu kaynta galo sorunma aw dadkii ariga soo saasma arigaasi markuu meeshii shalay neefka lagaga haray markuu madaxa la sii galay waa soo didahaya sababtu maxay tahay shalay buu wacdara uga joogay shalay buu wacdara u joogay oo meeshan lagu galay Soomaali qabyaalad lagu gal oo dhulkeedii burburi oo qixi oo gaalo u gacan gali oo dhowr iyo 20 sano ka badan rafaad iyo qurbo ku noole oo diintoodii adduunyadoodii baabay haddana ma cadaalika ariga didaya xataa waa noqon laayay ariga didahayo meeshii shalay balaayadu ku qabsaday ka didahay hatta waa noqon la soo xuquushi ma maqna marka soo xadiiska nabiga ma xuquushi ba maqan garashadii ba maqan cilmi badan inaga ma maqnee ilaahi tawfiiqda hayna siiyo ilaahi tabaaraka wa taala tawfiiqda allah hayna siiyo ilaahina tabaaraka wa taala quluubteena allah isu soo daweeyo qabiyaaladii maxay wuxuu yiri ninkii gabayaaga qabiyaaladii waxay dumiso mooyee dugsi male waxay dumiso mooyee xaqiiqo حكيم عبروا قبيالدي waxay dumisan mooyee dugsi male sidaas daradeed ilaahay tabaaraka wa taala umada qalbigeeda allah isu soo dumo allah iskan jeclaysiyo ilaahay tabaaraka wa taala qurankii qabiyalada allah inaga saaro ilaahay qabiyaaladii qashinka allah inaga saaro iimaankii islaamnimada allah inagu walaaleeyo qaybsanaanta allah inaga saaro furqada iyo kala taga allah inaga saaro midnimo iyo walaalnimo allah inagu bedelo إلهي تبارك وتعالى وناجينا الله يستسو حمانتنا الله ينجا أسترو إلهي وحن كبرنا تبارك وتعالى ومضى إسلام كأه دين تله خير كتشعل نينك حمانته وذا كشقيني وقبيلة استعمالي مقع قبيل استعمالي وإسكوب بربريني ومصالح ذي السيتشني نينك إلهي هدوسا هنون لدم عين إلهي هدو هنون لدم عينها صهرون hadduusan hanuun la damcinna reerkuu dooni ha noqdee alla halaago aamin da ninkuu dooni ha noqdee ummadda ninkii xumaan la raba oo qabyaalad ku dhex wada oo burburinaya oo masaalixdeeda iyo midnimadeeda ka horjeeda ilaahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala hadduu hanuun la damco u qorayna inuu soo hanuuniyo hadduusan hanuun u qorayna inuu ummadda uga raaxeeyo ilaahay taasaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala kelimada inta aan ku soo gabagabeeyo waxaad ogtahay ma kuu sheegaa un way jazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaan jeclaan lahaa in sheekhu maadaama wadankii hadda uu Kenya uu ka yimid runtii waliba barnaamij aad iyo aad u ballaaran oo loogu gurmanayo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira abaaraha uu sheekhu horseed ka ahaa socod iyo yani wardoonna uu u tagay xeryaha dadka qaxootiga ay ku soo gudmeen waxaan sheekhu ka codsanaynaa inuu warbixin naga siiyo waa tii aan hadda ka warramaynay runtii ummadda dhibkeeda
إلهي تبارك وتعالى أمبا كقادي كري الله كقاضو runtii horta waad ka warhaysaan oo xog badan u malayn maayo inay idinku seegan tahay maxaa yeelay warbaahinta ayaa runtii aad barnaamijka u gudbisay nin niyad sami ay ka tahay iyo nin barnaamij kale ku wataba warka markaan soo ururiyo dadka dhibka gaadhay xataa ninka tagay oo soo arkay si uu u cabiro ma garanayo ma la cabiri karo haddii si kasta loo cabiro waxa meesha yaallaa ka culus annaga meel maana wada tegin dhulka dadku u qaxeen meelaha u badani waa Itoobiya gudaheeda dolow eriyadeeda dadka u qaxay ilaa taqriiban taqriirka rasmiga ilaa 160 ruux ilaa 160 kun oo ruux ayaa xiriyaha ku jira dhankan meesha ka weyntaasi waa dhanka Kenya dadka soo aaday oo xiriyihii qaxootiga horay u sii jiray nafta la soo aaday dadkaasi waxay gaadhayaan sanad gudihii dadka soo qaxay waxay gaadhayaan taqriiban 270 kun bay gaadhayaan qaxootigii hore meesha sii joogay waxay ahaayeen 130 kun haddana waxay marayaan 400 iyo ziyaado kun bay hadda marayaan maalin kasta waxaa soo galaya oo lagu qiyaasaya dadka maalin walba soo galaya ilaa 1500 ilaa 2000 oo ruux yaa yawmiyan soo xaroota dadka intooda kale wax waa qaybta xamar xaggeeda u qaxday waxna deegaamadii laga soo qaxay baa xiriyo looga sameeyay joogaan xiriyahaasi tiradoodu ma gaadho kuwa banaanada u qaxay laakiin xiriyaha gudihiina ka jira magaalooyinka badankood ka samaysan ummadaas dhibaatada haysata waa dad wax kasto ibni aadan u baahan yahay wax ibni aadan u baahan yahay oo ay haystaan ma jiro waa qaawan yihiin oo way aradan yihiin rag iyo dumar waa qaawan yihiin waa midda labaade waa gaajaysan yihiin oo gaajadu midii shalay iyo daraad kugu dhacday waabad ka kaban kartaa gaajo la faha gaadhay oo jirkoodii nafaqada ka dhamaysay oo waqti haysay baa ka muuqata laana dadku meesha markay ka soo qaxayaan xilligii roobka bilihiisii u dambeeyay baa la joogaa waxay islahaayeen roob baa da'aya beeray beerteen intooda badan beerahay beerteen roobkii labaad markay sugayaan bay ba'een meelana roobba kuma diin waxyaalaha la yaab kale waxa weeye waxa la yiraahdaa abaaro 3 sano 4 sano kuwan ka dheer baa soo maray wadanka tan saamaynta ay yeelatayna ma yeelanin arintaas su'aal isweydiiyay waa laakiin markii la baaray waxaa la ogaaday dadkan waxa kharibay badankood horta waa beeraley waa dadkii beeraha beeran jiray waxa kharibay waayahan dambe Soomaaliya waxa ka bilowday ganacsi aan raashinka culus ahayn laakiin sinsinta iyo wixii la mid ah dadkii marka waxay iska dhaadhiceen waagi hore inta la beerto beeraha oo masagadu go'do oo digirtu go'do yaa bakaaraha la gashin jiray markaasaa lagu noolaan jiray 10 sano ka badan ka yar lagu noolaan jiray waxa dhacday baa lagu yahay kambaniya yimid lacag wata sinsinta iibsanaya beeriyo dhan sinsin baa lagu beeray kambaniyii dadkii lacagtii way ka iibsadeen oo lacag bay siiyeen sintin markay ka gateen sinsintii lacagtii xoolay dadkii siisteen ofirs bakaartii maxaa bedelay xoolaa bedelay xoolihii markay abaartu timid bakaartu way adkaysan lahayd xoolihii ma adkaysanin xoolihii waa dhamaadeen bakaartiina horay u dhamaatay waxba lama gelinin
meeshaasaa marka waxaa timid xaggee kuugu dhowood naf la gaari karta horta dhibka asal ahaan waxaa qayb ka ah farsamo xumada waxaa kaloo qayb ka ah oo dadka inay beerihii beertaan in badan sabab oo inay beeran waayaan hay-adahan UN-ka qaar ka mid oo markay dadku intay beertaan oo rafaadaan oo beertu soo go'ayso bilaaba inay raashin qaybiyaan ninkii beertu u soo go'aysay ee rafaaday ee intaasoo bilood rafaadsanaa beerta suuq u heli lahaa suuqii waxaa yaala raashinkii yani WFP baa yaala xaggee buu geynaa marka dhididkiisii iyo rafaadkiisii raashinkii waa ku baaray waxaa soo baxday marka kolley hay-adaana raashin bixin doonee waxba ha isku mashquulin raashin beeridiisa asbaabta runtii keentay musiibadan horta burburka iyo dawlad la'aanta iyo dulmiga iyo wixii marka laga tago asbaabtan waay dadku saan idin sheegay waa meelaha u badan ee dadku ay ka qaxeen ama musiibadu u badan tahayna saad ka warhaysaan dadkan annaga aan u tagnay badankood waxay ka yimaadeen gobollada Gado Baay iyo Bokool Hiiraan dad aan badnayn baa ka yimid iyo wixii xamar ka soo rogan intaasoo dhan way ka yimaadeen say u kala badan yihiin waxaa u badan Baay Bokool iyo Gada u badan dadka badankood meeshaas ka imaanay dadkan meesha ugu tagnay saan idin sheegayba dhibaato kasto ibn aadan uu qabo way qabaan qaar kamid ah waxay soo lugeeyeen markaan wareysanay 25 bari bay sulug soo ahaayeen qaar kamid ah bil bay soo lugeynayeen ilaa ay soo gaadheen xiriyaha qaxootiyada dadkaasi waxay u badan yihiin dad tabar daran dumar iyo carruur bay u badan yihiin hal goob baa waxaan ugu tagnay taqriiban dumar 100 ku dhow oo umulo ah iyo kuwa uur la ah markaan qiyaasay haweenta ilmaha ugu da'weyn haysata ilmaheedu 2 bilood buu jiraa qaar marka aan meesha taagannahay bay foolanayaan wanagu taagan bay ku foosheen waa sidaa dadka markaan warsanay qaar badan carruurtoodii jidkay kaga yimaadeen 5 ilmood 4 ilmood bay wadataa ma wadi karto mid calooshay ku sidaa 4 kalena gacmaha haysaa markay wadi kari weydo waxay kaga imaanaysaa muxuu ahaayay 2 3 way iska kala fududeynaa waxay badbaadin kartay badbaadinay duqeyti dhexda lagaga yimid odayaal dhexda lagaga yimid dad badan baa dhexda lagu soo dhaafay wixii soo gaari karay baa meesha soo gaaray dadkaasi duruufaha haysta waa duruufaha noocaas way qaawan yihiin jirkooda nafaqadii baa ka dhamaato xiriyaha haday soo gaadheen bay dhimanayaan meesha hadii la yimid hay-adihii UN-ka ay lagu soo socday la islaa waxbay qabanayaan meesha waxaan ugu tagnay dad 30 bari meesha jooga oo kaar yar gacanta loogu xidhay oo aan loo taagin xataa kooba qamandi ah 30 bari buu wareegaya ma garanayo hay-adaha ma tabardarra haysa maxaasidnimay ka tahay Allahu a'lam laakiin dadkii waxba looma qabanin waxa aad qaylo maqlaysaan madax hebel baa tagay ku xigeen baa tagay hebel baa booqday waxa aad maqlaysaan ilaa hadda jawaab rasmi ah ma jirto annaga meesha joogna waxa u badan ee dadka gaaray ilaahay tabaaraka wa tacaala ma hadiha ka gaadhay dadka u gurmaday ugu horeeyay waa dadkii qaxootiga walaalahooda ay soo duldegeen oo iyaga laftooda aad garanaysaan tabardaradooda ma taqaana waxa la siiyo wiigi waxa la siiyaa muxuu 3 kiilo bur ah iyo ma aqaano muxuu ahaayay kiilo muxuu ah saliid ah bas malaha kontonka dollareed u tuurtaan bay ku noolyihiin iyagii sida aha Soomaalidu waxay yiraahdaan adoo harsan waaye ma lagu soo hargalay adoo harsan la oo gaajo la harsan la haddii marti lagu noqdo lu soo duldaga ka war dadkii meesha sii joogay waxay karsan kari waayaan xataa raashin bay karsan kari waayaan ilaa dadkii markay meesha yimaadeen cusba magaaladii bay ku faafeen maqaayadii wixii ka karahayay raashinkii gab adamada ka celin kara 20 ruux 30 ruux oo gaajaysan haday maqaayada soo galaan naf baa haysa way ku dagayaan ruuxii dheriga dabka saarta dherigii dabka saarna waxa dul iimaanaya 20 baa soo dul fadhiisanay
وما إلمها قادسين ما ذا عني ما أي قادسين لا يسكدوا الرفاد dadkaasi waxay qaban kareen way qabteen dharbay ururiyeen yaani ayagoo caana u qaybinaya dumarkaasi umulaha baan u tagnay oo caruurtii yar dhalana jal wax afka u saaraya barax intay u barxeen ayagina afka u saaraya aad bay u gurmadeen dadka qaxootiga u horeeyay wax u gurmada soo qayliya kadibna waa ilaahay fadligiye waxa yaani wax way runtii aad mahad weyn ah ummadda Soomaaliyeed qayladii markay gaadhay meel walba waa laga gurmaday waxaan dhihi karaa arrin sidan oo kale loogu gurmaday ma xusuusto intaan Soomaalida garanay meel aniga centran jooga arrimaha dhan baa igu soo dhaca masaajidanada kaliya islii ayaa waxaan ka ururinay lacag taqriiban 250 ilaa 300 kun oo dollar ku dhow oo masaajida islii Mombasa lacag 200 kun oo dollar ku dhow baa laga ururiyay waxa inta dheer raashimada iyo dharka ilaa taqriiban 200 baabuur waa gaadheen kadib baa waxa soo furmay muslimiintii kale carabta gurmanaysa hay'adaha muassasadka dadkiina dibadda jira ilaahay khayr ha idin siiyo aad iyo aad warku markuu idin soo gaaray gurmad aad u fiican bay dadku sameeyeen maraakistii masaajidii ashkhaastii gabadha soo hadlaysa ee keligay baan tuulo joogaa sheekh telefishinka ka fiirsaday $100 baan soo diray meesha ha laga qaado xad male arintaasi runtii waa dareen muujinaya ummadani wali inay ku jirto walaalnimadii isku xidhnaantii naxariistii isu danqashadii in ilaahay inoo sii kordhiyana waa rajaynaynaa insha Allah ta'ala arinta marka warbixinteedu walaalayaal waa taas dadku waa kabala'aan way qaawan yihiin waa jallaan waa nafaqa la'aan waa hooy la'aan ka ugu nasiib badan gees hoostii buu fadhiyaa UN-ka teendhooyin wuxuu ga qaybiyay dad yar bay gaadhay dadka badankood ma haystaan oo meel banaan bay fadhiyaan geedo hoostood bay qaarkood harsanayaan qaarna banaanka ay fadhiyaan ummadda marka gurmad bay u baahan tahay wixii la qabtay oo dhan waa dhibic bad lagu dhaxriday waa kulli waxa aan sameeynay oo dhan marka la fiiriyo wax tarkeedu waa dhibic bad ku dhaxdhacday waa inta kaliya ma aha annaga ilaahay fadligii wixii na soo gaaray waxaan ururinay qaxootiyadan kaliya maanaan ku gaabsanine meel alla meeshii dhibaato ka jirto xira ka samaysantay baan wax ku tuuray wixii na soo gaaray waxaan ururinayba doolo wax baan u dirnay yaani qaxootiga halkaas dad aaminaan ka helo wax u dirnoo nirgaarsiya muxuu ahaayay xiriyahaas xamar sidoo kale hiiraan wax baan ku tuurnay dhibaatooyin ka jira gudaha baydhaba iyo muxuu ahaayay baar dheere iyo deegaamadan dhamaantood dad aamin hay'adaan helay aan wax marino ayagii baan ku turtuurnay wixii kaasheena soo gaaray inaanu meel walba gaarsiin karno ayaan isku daynay wax badan insha Allah ta'ala waa gaareen barnaamijku marka walaalahay saasoo u jira xamar xaggeeda dadka u qaxay hay'ado badan baa soo gaaray dadkan qaxootiga Kenya ku soo qaxay hay'ada gaaray hatta kuwa islaam badan baa tahay waa meel la teeyo dhanka Ethiopia dadka u qaxay waa dadka ugu daran doolow dadka ku qaxay waa dadka u daran wax fiican ma gaarin dadka ku jira xuduudan koonfureed ee dhalinyaradu ka taliso ama urka shabaab uu ka taliyo ayagana wax badan oo gaaray ma jiro hay'alay hay'adahan gaaladuna wali cagtay dib uga yarahayaan hay'adaha carabtuna wali wax fiican oo gaaray ma jiro intaan ka warhayo wax un Soomaalidaasi tuurtuurtay mooyee wax fiican ma gaadhay sidaasay marka duruuftu u kala jirtaa dhibaataduna u kala jirtaa idinkayna mas'uuliyadii xilku ina la yaala waa jirkeeni qayb kamida sida nabiga sallallahu alayhi wasallam hal jir baynu nahay inaan isu xanuunsanno waa ninkaan naxariisanin alla uma naxariisto nabiga sallallahu alayhi wasallam islaamaha umulaha iyo ilmaha xalay dhashay iyo duqa jidka lagaga soo tagay ninka ka nixi waayay ilaahay naxariistiisa ma istaahilo mana munna marka insha Allah ta'ala wixii aad qabateen khayr Allah idin siiyo wixii kalena hawshu waa ballaaran tahay waqtina inay qaadataa dhici kartee gurmadka hala wado wixii la heli karo wixii la taaban karo meel walba hala galo ummadda loo gurmado khayr Allah idin siiyo jazaakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi